الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد وبرنامج كيني فسر كرويوينك وأتكلا سعوتين جنالك تلموني برودكشن برنامج كيني ما تحن كسوق هدون ناديال إدمو رؤيدا لعقت لو أركايو منامك فسر كإلها دونتو أيان ديك دونا إن شاء الله maadaama daawadayaal badan na soo weydiiyeen fasirka ruuyada lacagta caalimkii weynaa ibnu siriin wuxuu ku fasirayaa lacagta oo manaam dhexdeeda lagu waayo fasirkan soo socda wuxuu ku leeyahay qofka haddii manaamka dhexdiisa oo lacag uu ku waayo fasirkeeda waxay noqonaysaa in ilmihiisa mid ka mid ah uu waayi doono ayay noqonaysaa ama haddii kale waxay noqonaysaa in arrimaha diinta oo qofka loo xil saaray ama waajibaadka ka saariin gudashadeeda in qofkaas wax ka mid oo ka gaabin doono ayuu caalimkan uu ku fasirayaa wuxuu ku leeyahay caalimka ibnu siriin calayhi raxmatullah qofka haddii manaam uu ku arko lacag oo weliba keed ah oo la siiyey ama uu haysto manaam ku arko waxay tusinaysaa in qofkan maal fara badan oo u imaan doono oo heli doono weliba soo lacag oo shaqaystay ayuu heli doonaa ayuu ku leeyahay ama dhaxal ha ku helo ama shaqo uu shaqaystaa ku hele lacag ayuu heli doonaa ayuu ku leeyahay caalimka ibnu siriin calayhi raxmatullah haddii qofka uu arko manaamka uu ku arko lacag badan hadduu manaamka uu ku arko qofkaas wuxuu heli doonaa risqi wafiir ah risqi badan iyo khayr iyo barako oo maalkiis loo dhex geli doono ayuu qofka helayaa waa manaam aad aad u muhiimsan oo u weyn maasha allah gabadha aan la guursan haddii lacag ee manaam ku aragto ee ku riyooto fasir caankii ayay qaadan doontaa gabadh aan la guursan lacagta ay arkayso waxay noqon kartaa inay wareeri doonto wareer uu ku dhici doono iyadna waa lagu fasiri karaa waxaa kaloo lagu fasiri karaa gabadha aan la guursan haddii iyadoo haysato lacag fara badan ee ku riyooto iyadoo lacag haysta ay ku riyooto ama lacag ay aragto waxay noqonaysaa in gabadhaas ahdaafteeda waxyaabo fara badan oo ka mid ah ee hanan doonto heli doonto heli doonta arki doonta welibana ahdaaftaas xaqiijintooda inay ku dadaalayso ayay noqonaysaa fasirkeeda gabadha haddii manaam ay ku aragto aan weli la gursan iyadoo bixinayso lacag iyadoo bixinayso manaamna ay ku bixinayso waxay noqonaysaa ruuyo ama waxay tusinaysaa dhacdo shay aan wanaagsanayn ama iyada dhib ku ah shay iyada dhib ku ah ayuu tusinayaa manaamkaas iyadoo lacag bixinaysa haddii manaam ay ku aragto sidaas ayaa lagu fasirayaa weliba fasirkana haddaa aragtid oo lacag bixinaysa gabarna aad tahay isla markaa ku fasiran inuu wax wanaagsan ama waxun ay ku dhacayaan ama dhib ku dhaca ku fasiranay hadba xaalad markaas aad ku jirtid ama culamada bandhiga weydii markaasna dhanka khayrka la aad ee ruuda lagu sheegay waxay tahay way noqon kartaa waa saana noqon kartaa saana noqon kartaa marka adigu dhanka wanaagsan ruuda la aad markaas ruuda waxa la aadaa dhanka khayrka arru'ya kama ubir ruuyada waa sidii lagu fasiro mar walba way noqonaysaa qofka ugu horeeyana qof wanaagsan oo sheegto ha ahaado ama ha noqdo haddii gabadhii manaam ay ku aragto iyadoo weliba lacag xadayso lacagay xadaysaa taas iyana waxay fasirkeeda noqonaysaa waxay daliil u tama tusinaysaa in gabadhaas khadar ay ku sugan tahay in khadar ay ku sugan tahay waxaana waajib ku ah in gabadh ay baraarugto digtoonin ay qaadato macnaha waxyaaba ay ku dhex jirto markaas waxaa laga yaabaa in shay xun ama wax aan wanaagsanin ay ku sugan tahay marka waxaa la rabaa waxyaabahaas inay ka laabato xun dhanka wanaaggan ay aado la rabaa oo mar walba ru'yada waxaa la rabaa inay tambiih ay ku noqoto oo aad ku baraarugsanaato ayaa lagaa doonayaa gabadha weli aan la guursan haddii halkaas aan uga baxno waxyaaba ay arkaysay ama haddaa ku darno qodobkan gabadha weli aan la guursan haddii manaam ay ku aragto lacag ee ka heshay saaxiibteed lacag waxay ka heshay saaxiibteed fasirkeeda waxay noqonaysaa in gabadhaa saaxiibta la cilaaqada ama xiriirka kala dhexeeyo uu daa'imi doono oo xiriir wanaagsan oo joogto ah uu ahaan doono cilaaqo fiican ay leeyihiin maadaama lacag iyadoo siinayso ay aragto haddii gabadha weli aan la guursan manaam ay ku aragto iyadoo lacag ka qaadanayso qof ee garanayso ama nin haado ama gabar aadee qof ee garanayso iyadoo lacag ka qaadanayso ayay manaam ku aragtay taasna waxay tusinaysaa in gabadhaas liibaan iyo arrimo wanaagsan ay dareemi doonto sacaado inay dareemi doonto
welibaana rooyo oo bishaaro ah akhbaar wanaagsanna qofkaas ay ka maqli doonto ayay tusinaysaa waa rooyo aad u wanaagsan waa rooyo bishaaro ah gabadha la guursan haddii manaam ay ku aragto iyadoo lacag iska dayacda ama lacag ay ka dhuntay ayay manaam ku aragtay lacaga ka dhuntay manaamka dhexdiisa taas waxay tusinaysaa ayaa lagu leeyahay in gabadhaas fursad weyn ay iska dhumisay fursad weyn ay wax ku qabsan lahayd inay dhumisay ayay daliil u tahay ama ay khasaarto fursad ay khasaarisay ama waqti dheer shay ay ku bixisay ay khasaarinayso ayuu taasna tusinaysaa haddii gabadha weli aan la guursan qodobka ugu dambeeya aan ka soo qaadano gabadha weli aan la guursan dee manaam ay ku aragto iyadoo lacag hesho lacag maanta hesho gabadhii taasna waxay tusinaysaa inay shaqadeeda ay ku guulaysanayso gabadhaas ama guurkeeda uu soo dhowaaday manaam ay ku jirtay lacag hesho waa rooyo wanaagsan shaqadeeda ay ku guulaysanaysaa ama guurkeeda soo dhowaanayo taas halkaasna uga baxno gabadha la guursaday ayaan gudagelaynaa haddii alla idmo gabadha la guursaday mutasawjida ah haddii manaam ay ku aragto iyadoo lacag fara badan haysato ayay manaam ay ku aragtay taas waxay tusinaysaa in gabadhaas ay ku raaxsan doonto ay ku noolaan doonto nolol wanaagsan oo istiqraar ah oo rido ah oo nolosha raal ay ka tahay qoyska iyo bulshadaba nolol wanaagsan inay kula noolaan doonto ayay taas tusinaysaa haddii gabadhii la qabay ee manaam ay ku aragto ninkeeda oo lacag siinayo haddii manaam ay ku aragto gabadhaas waxay tusinaysaa ninkeeda deeqda iyada oo korkeeda ku yahay wax oo bixinayo inuu deeqsi iyada u yahay ayay daliil u tahay waxaa kaloo daliil u tahay weliba inuu ninkaas ama ninkeeda oo ku dadaalayso gabadhaas u raaligelin lahaa intuu awoodo inuu ku dadaalayo oo nin iyada u wanaagsan uu yahay ayay daliil u tahay waa rooyadan aad u wanaagsan haddii gabadha la qabo ama xaaska ah manaam ay ku aragto iyadoo nolol barwaaqo ah ku nool gaar ahaan taasna waxay daliil u tahay in gabadhaas xoolo fara badan ama hanti fara badan ay heli doonto waa rooyo aad u wanaagsan gabadha la qabo haddii manaam ay ku aragto iyadoo lacag fara badan kala maamulayso kala bixinayso oo waxaan lagu qabto waxaan lagu qadarayso ama haddii kaleba aad u tasarrufayso oon u aaba yeelin ee manaam ku aragto lacag fara badan iska bixinaysaa waxyaabo aan loo baahnayn ayay ku bixinaysaa uma fakerayso taas waxay daliil u tahay inay mubadaro tahay oo lacagtii wax aan faa'iido lahayn gabadhaas ay ku bixinayso ayay daliil u tahay in marka manaamkaas ee digtooni ay ka qaadato oo xadir ay ku sugnaato mufasiriinta qaarkood waxay leeyihiin lacagta oo gabadha weliba la qabo ay arkayso xaaladdaas ay ku arkayso haddii xaalad wanaagsan ay ku aragto waxay noqonaysaa xaalad wanaagsan marka waa rooyo idin aad u fiican gabadha la furay qodobkaasaan gudagelaynaa lacagta ay ku riyoonaysay manaam ay ku arkayso gabadha la furay haddii lacag cusub ay aragto iyadoo haysato ee manaam ku aragto waxay daliil u tahay in waqti dhow gabadhaas ay guursan doonto weliba nin kale ay guursan doonto ninkii furamaan nin kale inay guursan doonto ayay daliil u tahay maasha allah waa rooyadana fiican weliba ninkaasna ay kula noolaan doonto nolol wanaagsan waa gabadhii la furo waaye haweenaydii la furay ayay taasna u khaas tahay haweenayda la furay haddii ay aragto lacagada ku riyooto manaamka dhexdiisa manaam lacag ku aragtay iyo lacag heshay manaam ay ku aragtay taas waxaa lagu fasirayaa in risqi waasaca oo risqi wanaagsan iyo khayr inay heli doonto gabadhaas ayuu daliil u tahay ama uu tusinayaa haddii haweenayda la furay manaam ay ku aragto kii furay oo siinayo lacag fara badan siinayo haddii manaam ay ku aragto weliba lacag cusubna siinayo waxay taas daliil u tahay in ninkii furay uu jecel yahay ninkii furay inuu gabadhan jecel yahay uuna rabo weliba in inuu soo ceshado inuu doonayo ayay tusinaysaa iyada marka waa manaam idin cajiib ah haddii haweenayda la furay ee aragto iyadoo lacag ka dhuntay ee manaam ku aragtay taasina waxay tusinaysaa gabadhaas in xusni iyo waxyaabo aan wanaagsaneyn ay u banbixi doonto kaas halkaasna uga baxno waxaan gudagelaynaa haweenayda xaamilada oo uurka leh lacag ay ku riyooto iyadana waxaa lagu fasirayo fasirka aan wadno waa caalimka weynaa ibnu siriin calayhi raxmatullah waa sheekh loogu dambeeyey tacbiir ru'ya haweenayda xaamilada ah haddii manaam ay ku aragto gacanteeda oo lacag ay ku jirto lacag cusub ay ku jirto haddii manaam ay ku aragto taas waxay dul u tahay in xilliga ay dhal lahayd gabadhaas ama haweenaydaas uu soo dhowaaday xil dhow ay dhal doonto welibana waxay tusinaysaa in dhalidda ay dhalayso haweenaydaas ay u fuudaa doonto
aynan ku dhibtoon doonin culaysan uuna ku lahan doonin ayay tusinaysaa haweeneyda uurka leh haddii aragto lacag ku firirsan guriga dhexdiisa lacag fara badan oo guriga ku dhex firirsan ayay aragtay oo meel badan taalo oo qolka dhexdiisa ah oo meel kasta iska taalo ayay manaam ku aragtay taas waxay daliil u tahay in risqi waasac ah iyo khayr weyn uu imaan doono risqi waasacna heli doonto khayr weyn uu imaan doono ayay daliil u tahay haweeneyda xaamilada ah haddii ay manaam ay ku aragto ninkeeda oo siinayo lacag siinayo waxay daliil u tahay inuu ninkeeda uu jecel yahay uuna saacidaayo uu taageerayo uu kaalmaynayo xilliga ee uurka ay leedahay haweeneydaas in halkaas ayaan uga baxaynaa fasalkoodaas waxaan gudagelaynaa ninka lacagta ku rido isaga qodobadaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa insha allah ninka laba kala qaadaynaa ninka dhalinyarada weli aan guursan iyo ninka guursaday asaan kala qaadan doonaa maadaama haweenkii aan soo kala qaadnay xaaladahoodii ninka oo dhalinyarada ah weliba oo shaabka ah ee weli aan guursan haddii madaam uu ku arko isagoo lacag fara badan helay weliba xambaarayo lacag helay waxay dul u tahay in ninkaas weliba rooyadaas ku riyooday ee manaamkaas arkay inuu shaqaysan doono weliba oo maaliyad fara badan oo heli doono khayrna u soo geli doono ayay taas daliil u tahay tusinaysaa dhalinyarada weli aan guursan hadduu arko gurigiisa oo lacag taalo waxay tusinaysaa ninkaas guurkiisa inuu guursan doono weliba gabar saalixaad inuu guursan doono ayay daliil u tahay maasha allah waa rooyo aad u wanaagsan weliba oo kula noolaa doono nolol wanaagsan oo kula noolaa doono oo ka baxsan mushkilo iyo heedaare iyo dood iyo saqabsi iyo nolol ka baxsan in gabar oo wanaagsan uu guursan doono kuna noolaan doono xaaladaas ayay tusinaysaa ee daliil u tahay ninka dhalinyarada ah wiilka dhalinyarada ah hadduu manaam uu ku arko lacag ayuu arko waana googooyey markaas waana tutuuray taas waxay daliil u tahay in nolol xun qofkaas oo xaaraam ah xiriir xaraam uu sameeyey kadib uu ka toobad keeni doono oona raasad doono gabar wanaagsan soo guursado ayay daliil u tahay kaas ay tusinaysaa ninka ama dhalinyarada ama wiilka dhalinyarada ah haddii lacag oo soo tuurayo u arko oo meelo fara badan taalo oo guriga dhexdiisa ah hadduu ku arko waxay tusinaysaa qofkaas inuu kurba iyo cidhiiri iyo uu la dhibaatoon doono qofkii asoo lacagta firdhinayo oo tuuraayo ayaa loola jeeda lacag iska taala maahan asoo firdhinayo haddii uu arko waa wiilka dhalinyarada weli aan guursan waa ee daliil u tahay waxaan bishaaro u tahay weliba qofkaas in murugtiisii uu ka baxaya dhammaan doonto murugaa heshay murugadii inay ka dhammaan doonto weliba xayaato nolol wanaagsan qofkii isoo laaban doonto oo nolosha nolol ka wanaagsan oo heli doono ayay tusinaysaa oo daliil u tahay haddii uu arko wiilka dhalinyarada weli aan guursan lacag weliba oo dahab hadduu arko oo manaamka uu ku arko taas waxay tusinaysaa ninka inuu heli doono khayr weyn oo heli doono iyo khayrna uu gaari doono ayay daliil u tahay ee tusinaysaa shaabka dhalinyarada ah weli aan guursan helitaanka lacag uu helayo weliba magaca ilaahayna lacagtiis ay ku qoran tahay ismullahi tacala ay ku qoran tahay waxay tusinaysaa in shakhsigaas uu yahay qof ahludiin ah oo diinta ku wanaagsan oo ilaahay ugu dhowaanayo acmaal saalixa ah ayay tusinaysaa maasha allah ninka guursaday ayaan ku soo khatimanaa insha allah maadaama waqtiga uu nahayo ninka guursaday hadduu ku riyoodo lacag hadduu ku arko manaam uu ku arko weliba lacag firdhisan ayuu manaam ku arkay taas waxay tusinaysaa qofkaas in xaaskiisa walad u dhali doonto ayay tusinaysaa maasha allah waa bishaaro iyana muhiim ah oo wanaagsan way aad u wanaagsan tahay haddii ninka uu arko wuxuu arkay nin qariib ah uuna garanayn oo lacag siinayo ayuu arkay manadaas ku arkay manaan ku arkay shakhs oo qariib ah qariib waxaa la qofka galootiga ayaa la dhahaa mana garanayo soo lacag siina arkay qofka raaga inuusan tukanayn oo cibaadada uu ka gaabiyey ayay tusinaysaa diintan uu ka gaabiyey ilaahna uu ka fog yahay subxaana allah ayay tusinaysaa waxaana waajib ka ah ninkaas inuu ilaah u dhowaado ilaah u soo laabto waxyaaba uu ku jirana uu ka baxo ayaa laga rabaa haddii ninkii uu arko lacag ku firirsan lacag guristaal ayuu arkay oo manaamkii uu ka arkay qofkaas waxay dil u tahay qofka inuu dhaxal weyn uu heli doono ama waxay tusinaysaa qofka inuu mashruuc weliba uu ku guuleysanayo oo soo banbixi doono oona ku guuleysan doono lacag badan oo ka heli doono ayay tusinaysaa waa manaam aad aad u wanaagsan manaam muhiim ah weeyaan halkaas aan kusoo gabagabayno
موضوعنا فسرك رؤيوينك ما تنقص بسنة فسرك رؤيدا لعقت لو أركاي منامك قبائك الله دونته هل كسب سوق قبيننا وبالله توفيق وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.